السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد أقوندون channel. muuqaal kan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee Adobe After Effects text animation loogu sameeyaa. Marka hore soo kici Adobe After Effects-ga. ugu horreyn waxaad sameysaa new composition. Si aad new composition u sameyso, waxaad tiraahdaa composition, kadib waxaad ka doorataa new. magaca doonto u bixi. halka waxaad ka dhigataa 1920. height-kan waxaad ka dhigataa 1080 square pixel ka dhig aspect ratio-ga. frame rate waxaad ka dhigataa 29.97. resolution-kana full ka dhigo. time-kana waxaad ka dhigataa 5 second. kadib waxaad tiraahdaa okay. hadda waxaan u baahanahay inaan sameyno background. si aan background u sameyno waxaad leedahay layer, new, solid. magaca doonto u bixi waxaan isaga qorayaa BG. kalarka waxaad dooran kartaa kalarka rabto. anigu waxaan isticmaali doonaa kalarka pinkiga ah. kadib waxaad tiraahdaa okay. hadda waxaan soo gelinaynaa qoraal. si aad qoraalka u soo geliso waxaad doorataa layer, kadib waxaad tiraahdaa new. waxaad ka doorataa text. qoraalka doonto ku qor. si aan u saxno position-ka text-ga waxaad tiraahdaa align, kadib waxaad ka doorataa center. hadda waxaan u baahanahay inaan soo gelino animation-kii. si aad animation-ka u soo geliso waxaad doorataa effect and preset, kadib waxaad ku qortaa 3D. waxaad ka doorataa 3D basic cascade. soo jiid, kadib waxaad dul keentaa layer-ka text-ga ama waxaad dul keeni kartaa qoraalkaada. kadib ku sii daa. hadda aan fiirina animation-keena siduu yahay. waxaad taabataa animation-ka si aad u fiiriso 0 ama ever. good. waan sameynaa animation-keena si sahlan. waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. marna waxaa hilmaamin inaad tiraahdo subscribe, saarto like, share na dhahdo muuqaalka.